السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليهيغا قاليغا waa idin salaamay dhammaan meel walba aad dunida ka joogtiin ilaahay ha idin xafido allah ha idin barakeeyo awlaada baari allah nooga dhigo nicmooyinka ilaahay na siiyo kuwi ku shukriya allah naga dhigo inta xanuunsanna ilaahay ha caafiyo inta caafimaadka qabtana ilaahay ha u siyaadiyo ilaahay ka sokow idinka idin mahad celinaa idinkan wax idinku ahay heerkan joogana idinka ay gaarsiiseen aada idinkugu mahad celinaa walaalahayga qaaliga aada u faraxsanahay shuruudihii youtube-ka waa buuxiye alxamdulilah rabbil caalamiin fadligiina iyo fadli lilaahi yaan ku gaare waxaa meeshaan uga mahad celinaa mahad gaar ah wiilkii igu dhiirigeliyay inaan youtube samaysto walaalkay cismaan maxamed cismaan caaqil yare aada kugu mahad celinaa walaashay jawaahir official oo garabkayga istaagto walaalay ilaahay igama kaa qaado ilaahayna ha ii kaa xafido aada kugu mahad celinaa jisadaada janno allah ka dhigo walaashay fardowse idris walaashay hani fitness fardowse ismaaciil meeshaan kuma soo koobi karo dadka aan u mahad celinayo idinkana waxaan idinku ahaya ilaahay subxaana wa tacaala garabkaygaa tihiine abaalkiina ilaahay jannaha idinkugu bedelo aada idinkugu mahad celinaa fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena Huda Binti Mukhtaar subscribe like share comment nagu caawi dabcan sida caadada ahayd walaalahayga qaaliga caaw waxaan rabaa inaan noo soo idin la wadaago qisooyinka iiga barateen mid ka mid ah ayaamahan cidda baladka ku dhaganahay hadda ka bacdi magac ma sheegay cidda baladka la leeyahay gabar cidda baladka ah gabar Soomaali ee qiso dhaxmartay aan jeclaystay inaan idin la wadaago waxay dhahday gabadhan oo cidda baladka ah waxay tiri maalin maalmaha kamid aan musawajada ah dhahday nina ay qabo gabar 5 jir ah ay joogto marka waxay dhahday maalin maalmaha kamid ah aniga madrasada aada yani waxa macallimad oo iskoola ahay madrasadan subaxnimo u dheelmadahay dhahday ninkaygana waa iga dambeeya ani ninkayga waa shaqeynaa laakiin subaxdii anaa ka hormaray dhahday waxay dhahday maalin maalmaha kamid ah anoo oo u socday dhahday madrasada oo isdiyaariye ah waxaana laga wacay dhahday dowladana wacday saldhigana laga wacay waxaana la dhahay dacwa la idin qabaa adiga iyo ninkaaga iyo tuflada yar oo idin joogto cunugta yar oo idin joogto saldhiga la idin ka rabaa kaalaya markaasaan waxaan dhahay tiri tufla isdambaha haddii anaga aan waxa leenay xataa dambigay gashay maxay tahay cunugta yar markaasaa layidhi saldhigaa ku ogaanay adiga iyo ninkaaga iyo cunugtaba kaalaya saldhigii haddaan tagnay dhahday waxaana la dhahay waxaa la idinku soo dacweeyey inaa cunugtaan soo xadeen markaasaan waxaan dhahay tiri cunugtaan see usoo xada cunugtayda waaye beenaa sheegay haa lay dhahay tiri cunugtaan dhiig afriqiya ku jiro cunugtaan dhiig afrikaana ku jiro mana ahan cunugtiinana ma ahan idinkana ma dhalin waana soo xadeen muddo 5 sano ahaana qarinayseen markaasaan waxaan dhahay tiri cunugtaan horta run waaye aniga ma dhalin laakiin ani ma soo xadin sida ilaahay ila ogyahay gabadhan ani ma soo xadin waa soo koriyay 5 sano soo korinaayay laakiin qisada oo dhan aan idinkaga sheekaynaa iyo siday ku dhacday kulli salfa hadda idin sheegaa markaasaan dhahay fadal haye waayahe markaasay waxay tiri aniga horta ilaahay ilma iguma irsaaqin dhowr sano ninkaa isqabnaa laakiin waxba ma aan u dhalin mudarasada ahay dhahday iskoolaan dhigaa macallimada ahay ninkaygana woo shaqeeyaa maalin maalmaha kamid ee subax anigoo baxaaya aan waxaa arkay dhahday gurigayga iridiisa waxaa lasoo dhigay gabar cunug yar oo lafa saan u duuduuban yacni sida ilmaha umushi ah oo duuduuban oo umushi 40ka aan weli u dhammaanin aa gurigayga iridiisa lasoo dhigay ilaahay amarkiis ani marka albaabka fur oon ka baxay aan arkay waa soo qaaday ninkayga u soo noqday markaasaa waxaan dhahay yaa fulaan في طفل عند الباب على صور دقي يعني قولوا يرديسا عنق ير لصور دقي ما أنا أقانو قف كليتنا أدق جيسها فيرينا قف ملهن عنق تكلي جذا ماشي طال مركا نكى وحده هذا عنقتي وفر فري واحد بعت قبضة مال عنقتي يعني عنق حالي ماشي كبري عنق هذا لصور دقي ولا كلا جرانا عنقته وحده هذا ساعة هذا كهر لي لصور دقي واحد بعت ما قبضة الصحة هذا وفي عنده هاي داوع كوميالو الحمد لله markaasaan waxaan dhahay tiri maadaama cunugta ay caafimaad qabto cunug yarna ay tahay aminka aadaynaa yani saldhiga tagaynaa agrab shurda aadaynaa yani maxaa saldhig noogu dhow aan u geynaynaa waxaan leenahay tufladaan soo helnay gurigayna irdiisa la soo dhigay markaasoo ninka wuxuu dhahay mayo dhahay ma la geynayo meelna lama geynayo alla razaqnaa bibint khalaas waa korsanaynaa waa haysanaynaa markaasaan waxaan dhahay tiri ama hadhow dhib nooga imaadaa markaasoo wuxuu dhahay wax dhib oo nooga imaanaya male haddii qof oo raadinaya aan aragnane waa siinaynaa haddii kaleetane
meel oo dowladeed ma geynayno sababta waxaa laga yaabaa in oo dowladda ay naga qaado ay dhahaan wixii dhalayaa loo raadinaa ama ay ii sheeg waa lahayna daari aytaamkaa la geynaa meesha oo agoonta inayna dhahaana laga yaabaa ilaaha nagu irsaaqa ilaaha nala soo doontay naga dhaaf waa iska korsanaynaa waayahaan dhahay tiri ilaahay amarkiis waxay tiri ani fasaxaan soo qaatay tiri maadaama cunug yar aan helay umul waxaan soo qaatay tiri hal bil oo fasaxa iskoolka kasoo qaatay yacni daraf daariya igu dhacay wax oo yacni mustacjal oo dhaqsi ah igu dhacay ma imaan kari iskoolkaan dhahay si aan cunugta umul ula galo waxay dhahday guriga anoo joogo oo cunugta xanaanaynaya 2 maalin kadib ay dhahday albaabka la iisoo garaacay markaasaa albaabkiiaan furay dhahday waxaan ka furay dhahday gabar cabaayadeysan cabaayad iyo indhexir iyo taraxad wadato laakiin wejigeeda aan furneen oo wejigu xiran yahay aan ka furay dhahday albaabka haddaan ka furay waxay dhahday tuflada yariista yoomeyn ka hor inta lasoo dhigaayo hooyadeeda ahay markaasaan waxaan dhahay tiri aniga cunug ma arkin يعني عنقت أنت لسودي جاي هو إذا أنا عنق ما أركني هذا الباب قلده سو قراعي لا والله الباب قلده سو ما قراعي هذا الباب سحن سو قراعي أنا صوت جاي هذا أنا جبر صومالي هذا هاي ما فهمت شرعي مليه هذا كلاتني ظروفه هي يعني ما أودي إن أنكري عنقتان مر هدي أنا علي هدي عن شقي سنة نقف هاي نسمله ودن كنه ما أودي إن أوديه وانا اوغي هذا انا معلمه اسكول تاي ان هذا علمي هيسنين مدان انيغا ku raaqibay ma fahantay waana ku aqaana kordheera ka ilaashanay marka gabadheeda amaanay adig kugu tahay markaas waxa is dheeytir amay runtii tahay waxaan dhahay hadii hadalkaaga oo akiid yahay mutaakid ah tahay ina gabadha adiga dhashay oo aniga inaan qaatayne hubtid soo gal gudahan ku wada hadlaynaa idkhul ilbeed la ma adkhul dhahday خلاص انت ساعة ربي إنا كوشيغو اون كولا دردارمو عنوكتا انا دالي ظروفان ايغو وديسو انيغا شرعي مالي بأي لحظة اللي قامان كرا او اللي ترحيلي كرا marka walaalay aga kugu ogahay cunugteyda markaas aan waxaan dhahay tiri waa wada hadleynaaye albaabka igala hadline soo gal guriga ee soo fariiso mayay dhahday waxaan rabaa koob biyo ah rabaa cadshaan ah yani oona ahay catini mooye dhahday biyo isii ilaahay amarkiis waxay dhahday gabadhi biyo u doonay hadaan biyo la soo noqdayna ma joogtay dhahday naagta muddo 5 sano ah laga joogahay dhahday المشكلة waxay dhahday markii ay naagti aan waayay wax kale igu soo noqdo oo qof kale albaabkayga soo garaaca aan waayay waxa dhacday tiri markay cunugti weynaatay ay soo kortay aniga shakal dabiici ah oo ceeshay dhahday yani dad may ogaanin ina maxalla cunugta aan ka soo qaatay albaabka khayr familygayga dhahday ehelkayga bas ogaadeen laakiin meel dawladeed ma geeynin dhahday anaga cunugta waa iska haysanay waxa dhacday muddo hadii la joogo cunugta ay soo kortay إلا عنقت اسمه أباهنتها مجا عربتها يا دلي إنه هبل إلا دهوا وحنا هذا نفوس كينا كسوقرنا يعني مجا عسيني مجا عنا كسوقرنا إنه هبل إنه تهي أنا جا عن دلي أوراقي وحي وراقي وحى أصلا ما يسنيتري إلى أمر كسيدنا أنا جو إسكاج عيش ينيتري أو حدا عذي شكل طبيعي أنو عيش هنا هذا وحنا جهل لسنا مالك كال إسكارج وحنا هذا جبرت نولش أنجلي عنقته ما شاء الله أنا قالوا بس كده قال إسناني ترى أنا واشقينا يعني كي واشقينا ما شاء الله يعني حالتنا مادية واسكفي عناد يعني نولشنا حوله واسكيه سن إلهي نوان إرساقه إلهي يا مهداس إسكالي وحيد هذي إلهي أمر كيس وحيد هذي مالمها كمد مدة 5 سنة عنقت مركا هاي مالمها كمد أو حد علي تري إن أنا لسود دعويه أنا لده حالة اختطاف اللي يمكن سود دعوي قبر يرو وحاسو حدين شنجر إلى 5 سنة كجارت أقولي نكوهسن قبر دي نسي اللي سود دعويس وحد هذا إلى أمر كيس عدنا سليجي عن تجني هذا مالك سليجي هدان تجني وحد هذا وحنا لها عنقتك هنا عنقت هدان جين وحنا لي قبر دان ديك أفريقيا كجرا إذن كم مدلين واسو حدين والله العظيم صو ما حدنا لهيتر ما soo xadin aniga gabadhan hooyadeed hal maalin ay timid waliba aanan hubin inay ayada dhashay yani wax cadeena aniga ma haynin dhahday gabadha markii la soo dhigo gurigayga irdiisa 2 maalin kadib ii soo garaacday waxay dhahday gabadhan aan soo dhigay ana dhalay adaana kuugu ogahay duruufa ihaysa duruufan iga kaxeynaysa ma korin kari maxalla gabadh ii dhaqaalay ii hay
maalinkii kadibna gabadhii iguma soo noqon muddo 5 sano ahaana laga joogaa markaasaa waxaa lahay gabadhii oo gabadha dhashay iyada naftirkeeda idin soo dacweysa waana la keenaa khalaas hayaan dhahay tiri adig waxyar haddaan joognay meesha qol anaga ku jirno aniga iyo ninkaygii cunugti aniga ummi idhehe dhahday anila ilaan soo koriyay markay umasheed ilaa haddee aniga le maxaa lahaa aniga iyo ninkayga iyo gabadh yareed qol ku jirno waxaana loo keenay dhahday gabadhii maalinkii ii imaanaysay markay gabadha umashi ahayd cunugta umashi markay umashi ahayd gabadhii ii imaanayso albaabka ii soo garaacaysaa imaa la soo geliya dhahda qolkii markaasay waxay dhahday aniga waayo qofka kusoo dacweeye maxaa lahaa waxaan dhahay tiri maa ilaahay ka cabsatid maa takhaaf min allah haddii leesh iisoo dacweyne haddii gabadhaada u baahan tahayne muddo 5 sano ahaan gabadhaada haye sida iigu soo garaacday maalinka gurigayga irtiisa soo dhigaysa maxaa iigu soo garaaci weysa albaabka oo ii dhihi weysa gabadhayda waa rabaa maadaama ii korisay badaal maa tashkuriini maa iga dacwoonaya dhahday inta waa mahadsantahay i dhihi laheyd jisadeeda maxaa ka dhigtay dhahday inay dacweysid marka waxay dhahday ani mutacalliqa ku noqday gabartii aada u jeclaaday sababtoo anaa soo korsaday dhahday anigana awlaad ilaahay iguma irsaaqin subxaan allah marka waxay dhahday saas ma kaafilayninay dhahday calaa kulli xaal waxay dhahday aniga gabarteyda hadeertaan waa rabaa waa wadanahay dhahday ani sidii aan ahay sharci malihi gabadhayda laakiin hadda waa ku filanahay waa haysan karaa ma fahante khalaas haddee saas tahay maxaa la dhahaa isheeg aniga gabadha isimkaygaa siiyey inaa aniga dhalay cadeymana u haystaa inaa aniga dhalay maxaa la dhahaa isheeg inuu ninkayga dhalay cadeymana u haysanaa marka qaladkaas maba geli lahayn haddaa ogahay inaa gabadha soo doonanayside saan maxaa noogu galay marka waxay dhahday annaga waxaana lagu qabsaday oo dowladda ay nagu qabsatay leesh cataytuwaa nafuuskumaa la dhahay oo isimkiina iyo wixiina ugu qorteen oo gabartan inay haddaa dhimatay dhaxal ay idinku leedahay maxaa saas u samayseenaa dhahay qeyr qaanuun waaye sharcigaa ku xadgudubteen taas horta tuhumada koowaad waaye waa la idinku xiraa ma fahantay tuhumada labaad haddii hesheen gabadhan gurigiina iradiisa lasoo dhigo cunugtaa yar maxaa dowladda ula xiriiri weyseen labada marba idinkaa qaldan marka waxay dhahday fil akhiir waxay dhahday annaga horta cuquuba yani waana la ciqaabay oo ciqaabadeenana waxay tiri anaga wadankaa u dhalanay waxa maxaa la dhahaa isheeg wax sidaas usii dheer ma ahaanayo haddiina la xiro xataa marka ciqaabtayna soo dhammaysano wadankii lana lagu daynaa laakiin waxay tiri fil akhiir gabadhii yareed oo aan korsaday oo hooyada u ahay oo aadka u jeclaaya dhahday iyo gabadhii dhashay labadoodaba sharci daraa loo tarxiilay aniga iyo ninkaygana muddad shahara xirnaynay dhahday kadibna alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay waana soo badbaadiyey gurigeena dib ugu soo noqonay marka waxay dhahday gabadhaas aniga waxay dhahday qisadaasa gabar soomaaliyeed aana dhex martay aadaan oga xumay dhahday yaa banaad intabu way dhahday haddii xataa ilaahay awlaad idinku irsaaqane inaa iska tuurtiin iska jira qof aan waxba idinka halayno abaal idin galayna jisadiisa ha ka dhigina in aad soo dacweysiin oo aad ku tuhumtiin in cunugii lagaa qataftay marka waxay dhahday aniga qisadaasa igu dhacday binti soomaaliya qisadaasna dhex martay asxaabtayda qaaligaa sidaa ujeediin aniga waxaan kasoo arkay googlaha aan kasoo aqriyay ana waxaa jeclaystay inaa af soomaali idinkugu soo gudbiyo haddii aad ka heshay sheekada waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaligaa subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta khaasatan like-ta ha igala baqiilina aada u mahadsantii